madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa markan ka fakaraya inuu hoos u dhigo saameynta siyaasadiisa uu ku leeyahay ra'iisul wasaaraha nidaamka gacan ku samayska ee Israel Benjamin Netanyahu xilli xiisada gobolka bariga dhexe ay sii kordhayso isla markaana laga baqanayo in Mareykanka gudihiisa gaar ahaan xisbiga jamhuuriga ay u dareemaan siyaasadooda inay Israel gadaal ka taagan tahay taas oo iminka ay xiisada gobolka ay uga sii darayso gaar ahaan siyaasadda gudaha Mareykanka. Damaca Trump sidee loo fasirayaa qaar ka mid ah warbaahinta Israel sidee bay u dhigayaan doodan cusub ee ka imaanaysa Washington. Dhinaca kale waxaan eegi doonaa inta barnaamijka aan wada joogno xiisada cusub ee ka dhex abuurmaysa dowladda Turkiga iyo nidaamka Israel ee Benjamin Netanyahu uu hogaamiyo. dowladda Turkiga ayaa saameyn weyn ku yeelatay gobolkaasi iyadoo Israel ay dareemayso qatar weyn oo ku soo fool leh awoodda Turkiga ay sii baahaysa. Haddaba Erdogan iyo Netanyahu kaba ku adkaan karaya gobolka bariga dhexe marka laga fiiriyo dhaqaalaha, amniga, siyaasadda iyo baaxadda militariga ee xagga quwadda. waxaan sidoo kale eegi doonaa inta barnaamijka aynu isla joogno khiyaarta ay nala socotay markii ugu horeysay dowladda Iran ayaa soo bandhigtay hanaanka uu ku badbaaday ayatullaahiga wadankaasi ahna murshidka ugu sareeya dowladda Iran Mujtaba Khamenei xilligii weerarka lagu qaaday hoggaanka sare ee wadankaasi Iran xaruntooda isla markaana lagu dilay mas'uuliyiin uu ka mid yahay aabihii oo xilligaasi talada ayatullaahiga haystay ee wadanka Iran gaar ahaan waxa loo yaqaan wilaayatul faqih. waxaan sidoo kale qaada dhigi doonaa inta barnaamijkan idila joogo ciidamada Mareykanka ayaa isticmaalaya aqliga garaadka macmalka loo yaqaano ee AI-ga iyagoo miinooyinka ku jira badda gunteeda ee marinka Hormusna soo saari doona. dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa ku dhalishay dowladda Iran in ay tahay mid qariska tuura oo doonaysa in marinka Hormus kaligeed ay marorsato sida uu ku tilmaamay qoraal uu soo saaray goor dhaweyd la taliyaha sare ee madaxweynaha wadanka Iran Dr. Anwar Gargash. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa markan ka fakaraya in uu iska fogeeyo isku milanka siyaasadda ee nidaamka Israel iyo waliba dowladda Mareykanka oo isaga hadda hogaaminayo tan oo qaar ka mid ah shacabka Mareykanka siyaasiyiinta aqoonyahanka iyo warbaahintuba ay u arkayaan inay noqotay isku milan xoog leh oo xitaa saameynaysa geedi socodka madax banaanida Mareykanka iyo saameyntiisa adduunka. warbaahinta Israel qaarkood ayaa ku tilmaamaya tan inay tahay markii ugu horeysay dharbaaxa kulul oo siyaasadeed oo ku dhacaysa ra'iisul wasaaraha wajahaya qataraha badan oo ay ka mid yihiin maxkamadaha iyo eedeynta musuqmaasuqa ee Israel Benjamin Netanyahu oo siyaasadda gudahana ka dareemaya culays weyn oo ballaaran. Netanyahu ayaa doonaya dagaalka gobolka bariga dhexe in kor loo soo qaado iyadoo dhinaca kalena ee dowladda Mareykanku ay qorsheynaysay kulan saddex xagala inuu dhaco u dhaxeeyay Joseph Aoun oo ah hogaamiyaha dowladda Lebanon ee dagaalada ba'an wajahaysa ra'iisul wasaare Netanyahu iyo madaxweyne Trump. laakiin kulankaasi ayaa u muuqanaya in uu fashilmay kadib markii Washington ay ku tilmaantay tillaabooyinkaasi inaanay qaadi karin sabab la xiriira Trump oo hadda u arkaya Netanyahu culays uu tunka ku sito siyaasadda Mareykanka ay si weyn uga soo horjeedaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta. maalmihii la soo dhaafay qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka iyo dadka wax taxliiliya ee ayaa wadankaasi ayaa tilmaamayay in madax banaanida siyaasadda dalkaasi ay u muuqato mid aan hadda wanaagsanayn oo god dheer ku sii dhacaysa iyadoo Trump go'aanada uu gaaraya ay yahay mid uu ra'iisul wasaaraha nidaamkaasi Israel Benjamin Netanyahu uu banaanka ka soo meerinayo. hase ahaatee xiisada ayaa sii adkaanaysa iyadoo la filaya maalmaha soo socda in isbeddello waaweyn ay ka dhacaan gobolka bariga dhexe. haddii aan eego ciidamada badda ee Mareykanka ayaa bilaabay in ay aqliga macmalka ah ee AI-ga loo yaqaano ay u isticmaalaan baaritaanka minooyinka gunta hoose ee badda marinka Hormus ay gelisay dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. qarshaad ku kacaya $100 milyan ayaa la siiyay mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dhinaca tiknoolajiyadda iyadoo la doonayo in gobolka laga badbaadiyo xiisadan sii kululaanaysa iyo qataraha maraakiibta ganacsiga iyo kuwa shaxnadaha waaweyn wada ee maraba la yiri marinkaasi istiraatiijiga ah.
wararku waxay sheegayaan in shirkadda la yiraahdo Domina Data Lab ee xarunteedu yahay San Francisco ay heshay qandaraas gaaraya $100 milyan oo dollarka Mareykanka si ay u taageerto ciidamada badda ee Mareykanka isla markaana tiknoolajiyadeeda ay gacan ka siiyaan baa la yiri in la ogaado minooyinka ku jira gunta hoose ee badda. barnaamijkan AI-ga ayaa ku shaqeynaya ayaa awood siinaya baa la yiri maraakiibta iyo qalabka quusa ee aan quudaha lahayn ama gujisyada Mareykanka si loo aqoonsado noocyada cusub ee minooyinka daasan dhulka hoose ee badda. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada baddu ay hadda ku howlan yihiin howlgallo lagu nadiifinayo aagaga suuragalka ah inay maraakiibta maraan. howlaha soo saarista minooyinka ayaa markii hore qaadan jiray sanado, laakiin hadda waxaa la qorsheynayaa in ay waqti kooban oo kaliya lagu soo saaro. sida lagu sheegay shirkadda Domina Data Lab, tiknoolajiyadan cusub waxa ay yareynaysaa waqtiga lagu cusboonaysiin karo nidaamyada AI-ga, taasoo markii hore minooyinka badda si loo soo saaro qaadan karaysay sanado, hase ahaatee hadda lagu soo koobayo maalmo kooban oo kaliya. mas-uul ka tirsan shirkadda oo lagu magacaabo Thomas Robinson ayaa sheegay in howlihii hore ee lagu ogaan jiray in lagu soo saari karo minooyinka hadda ay ku tiirsan yihiin maraakiibta iyo shaqaalaha ay yihiin kuwa muhiima. dowladda Mareykankuna ay ka faa'iideysanayso tiknoolajiyada si meesha looga soo saari lahaa minooyinkaasi. dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay bilowday in ay si ba'an u dhaleesho dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. Imaaraadka oo ka ganacsacay arrinta la xiriirta baa la yiri hadalkii maanta ka soo baxay safiirka qaramada midoobay u fadhiya dowladda Iran ee ku aadan wadamada 6 wadan oo Carab ah in laga soo weeraray dalkooda oo isutaga Imaaraadka ku jiro. Anwar Gargash ayaa qoraal u soo dhigay barta X ee hore loo oran jiray Twitter waxa uu ku leeyahay dowladda Iran sida hadda ay wax u wada kaligeed lama qaadan karayo. marinka Hormusna maaha meel cid gooniya ay qadab bilaash ka heli karayso oo kaligeed maamulaysa. la taliyaha diblomaasiyadeed ee madaxweynaha Imaaraadka Anwar Gargash ayaa sheegay in uu ku kalsoonaan karin wax qorshe ah oo Iran ay si kaligeeda ugu maamulaysa marinka Hormus, gaar ahaan arrimaha amniga iyo la socodka maraakiibta kadib dagaaladii aadka u xanuunka badnaa ee gobolka ka soconaya muddada 40 maalin ah. qoraal uu ku baahiyay barta X ayuu Gargash ku sheegay in doodaha ka socda arrinta Hormus ay yihiin kuwa loo baahan yahay in si weyn hadda indhaha loogu hayo. wuxuu carabka ku adkeeyay xeerarka caalamiga iyo iskaashiga dalalka ay yihiin damaanada ugu weyn ee lagu ilaalin karayo xorriyadda maraakiibta marinbiyoodkaasi istiraatiijiga ah oo lafdhabarta u abuuray dhaqaalaha adduunka. hadalkan ayaa imaanaya iyadoo ay soo xoogeysanayo khilaafaadka ka dhex taagan dalalka gobolka ay ka mid tahay Tehran iyo dowladda isutaga Imaaraadka Carabta. mas-uulkan Imaaraatiga ayaa si cad u sheegay in lagu tiirsanaan karin buu yiri ama lagu kalsoonaan karin dowladda Iran tallaabo kasta oo ay banaanka keenaan oo waxtar yeelanaysa sida dowladdaasi ay ku dhawaaqaysaba. markii ugu horeysay mas'uuliyiinta xarunta hoggaanka sare ee dowladda Iran ayaa ku waramaya sida uu ku badbaaday murshidka ugu sareeya dowladda Iran Mujtaba Khamenei xilligii la duqeynayo goobta ay ku sugnaayeen aabihii iyo saraakiil kala duwan oo xaruntaasi joogay. mas-uul ka tirsan kuwa dowladda ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Faris ee dowladda Iran in tallaabooyinka ninkaasi uu ku badbaaday ahayd faracidida. mas-uul sare oo ka tirsan dowladda Iran ayaa shaaca ka qaaday faahfaahin cusubna ka bixiyay hanaanka uu ku badbaaday hogaamiyaha sare ee dowladda Iran Mujtaba Khamenei weerarkii cirka ahaa ee lagu qaaday hoggaanka dalka xilli uu ku bilowday baa la yiri dagaalkii u dhaxeeya Mareykanka, Iran iyo Israel dhamaadkii bishii Febraayo aynu ka soo gudubnay. gudoomiyaha xiriirka xafiiska caalamiga ee hoggaanka sare ee Iran Muhsin Qawmi ayaa sheegay in Mujtaba Khamenei uu ka baxay dhismaha xarunta hoggaanka daqiiqada yar ka hor inta aan duqeynta lagu qaadin, taas oo sababtay in uu ka badbaado isku dayga dilka ee laga doonayay. Qawmi oo muuqaal uu baahiyay ay soo qaadatay wakaaladda wararka ee Faris ayaa ka hadlay isagoo tilmaamay in Khamenei xilligaasi uu ahaa mid ka baxay dhismaha balse uu soo gaaray dhaawac.
ma uusan faahfaahin nooca dhaawaca soo gaaray iyo weliba tillaabooyinka ka dhashay weerarkaasi oo ugu dambeyntii sababay Mujtaba Khamenei in uu la wareego booskii aabihii oo hay-adda sare ee golaha qabiirada iyo culimadu 88 ka kooban ee qof fadhigoodu yahay ay doorteen inuu noqdo murshidka ugu sareeya ee hoggaanka walaayatul faqih loo yaqaano ee wadanka Iran. xiisada u dhaxaysa Israa'iil iyo Turkiga ayaa cirka isku shareeraysa iyadoo dowladda Turkiga hadda loo calaameynayo baa la yiri inay noqonayso cadowga ugu horeeya nidaamka gacan ku samayska ah ee yaala gobolka bariga dhexe. telefishinka Al-Arab Al-Jadid ee fadhigiisu yahay dalka Ingiriiska isla markaana dalka Qatar laga taageero ayaa qoraya xiisada siyaasadeed iyo tan istiraatiijiyadeed ee u dhaxaysa Turkiga iyo Israa'iil ayaa isi soo taraya si ay u sii xoogaystaan iyadoo falanqeeyaal badan ay isweydiinayaan Ankara hadda loo arka cadow cusub oo Israa'iil kadib isbedel ka dhacay gobolka. warbixin iyo falanqeyn cusub oo soo baxaysa ayaa tilmaamaysa in Israa'iil ay dib u habeyn ku sameynayso qiimeynta qadaraha gobolka iyadoo la sheegay in Iran aanay hadda loo arkin baa la yiri qatarta ugu weyn ee hore taas oo keentay in Turkiga ay sii kordhayso oo lagu soo bandhigayo caqabad istiraatiiji oo cusub oo Israa'iil haysata. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dhawaan sheegay in awoodda Iran la weeqay isla markaana qatarta ka imaanaysa aanay hadda ahayn mid jiritaanka Israa'iil halis gelinaysa sidii hore. dhinaca kale mas'uuliyiin Turki ah ayaa walaac ka muujinaya hadallada iyo waliba siyaasadda Israa'iil. wasiirka amuraha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan ayaa ka digay in isku day kasta oo Israa'iil ay ku doonayso inay Turkiga ugu sawirto cadow cusub Iran aysan hadda suuragal ahayn. Ankara waxay u aragtaa Israa'iil awood carqaladaynaysa dheelitirka gobolka gaar ahaan arrimaha Syria Gaza iyo siyaasadda gobolka ee sanadihii ugu dambeeyay. khilaafka labada dal ayaa sii xoogaystay kadib markii mowqifka adag ee Turkiga ka qaatay dagaalkii magaalada go'doonsan taageeradana siiyay Falastiiniyiinta iyadoo diidmada ka muujisay dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen dalkaasi. sidoo kale xiisad cusub ayaa ka dhalatay kadib markii Turkiga uu sheegay in uu diyaarinayo dacwad ka dhana 35 qof oo Israa'iiliyiin ah uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha nidaamkaasi gacan ku samayska jawaab ahaan Netanyahu iyo xubno ka tirsan dowladdiisa ayaa si adag u weeraray madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Turkiga oo hadda ka tirsan gaashaanbuurta NATO ayaa noqonaya cidda ugu horeysa ee Israa'iil ishayaan.